Khamiista bari waxaa lagu balansan yahay inuu Muqdisho ka dhaco bannaanbax dadweyne kii ugu cuslaa oo looga soo horjeedo damaca Itoobiya ay ku doonayso badda Soomaaliya waxaana bannaanbaxaas iclaamisay oo hogaaminaysa dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay kulan caawa uu yeeshay guddiga qabanqaabada bannaanbaxa difaaca gobonnimada dalka kadib damacii Itoobiya ee doorista baddeena guddiga oo ay xubno ka yihiin wasiirada arrimaha gudaha warfaafinta dhalinyarada amniga taliyaha booliska maamulka gobolka Banaadir wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale ayaa looga arrinsaday bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhicin doona guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho inta uu shirku socdo waxaa diiradda lagu saarayay sidii looga tashan lahaa qaabka uu u dhacayo bannaanbaxa ay bulshada Soomaaliyeed dareenkooda ku cabiraan ujeedka bannaanbaxan oo bari ka dhicin doona caasimadda ayaa ah diidmadan gardarada dowladda Itoobiya ee damaca badda oo heshiis is-afgarad ah la gashay maamulka Somaliland kaasi oo ah damac baalmarsan gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed qaaradda gobolka iyo qanuunka dawliga ah ayaa lagu yiri qoraal laga soo saaray kulanka guddiga dhinaca kale xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dawladda ayaa ku baaqay in aan loo kala harin bannaanbaxa khamiista bari ka dhacaya Muqdisho ururka shaqaalaha dawladda wuxuu soo dhaweynayaa una diyaarsan yahay ka qaybgalka bannaanbaxa weyn ee khamiista looga dhawaaqay Muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xiriirka ururka shaqaalaha dawladda wuxuu soo dhaweynayaa una diyaarsan yahay ka qaybgalka bannaanbaxa weyn ee khamiista looga dhawaaqay Muqdisho dhammaan shaqaalaha dawladda ayaa qoraalkan looga codsaday inay ka soo qayb galaan bannaanbaxa bari si loo muujiyo dareenka dadka Soomaaliyeed loona muujiyo xadgudubka Itoobiya ee kacday dhanka kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa caawa soo saartay qoraal ay shaqaalaha dawladda ku farayso inay ka soo qayb galaan bannaanbaxa Muqdisho ka dhacaya khamiista bari sidoo kale wasaaradda ayaa shaacisay in goobaha ugu muhiimsan ee la iskugu imaanayo ay ugu horeyso taalada danjirka Dahsoon ee degmada Boondheere caasimadda dalka waxaa laga dareemayaa diyaargarow xoog leh oo ku saabsan bannaanbaxa ka dhacaya Muqdisho ayaa laga dareemayaa caawa waxaana suuqyada laga iibsanayaa calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Bahaja Cabdullaahi Saar magaalada Muqdisho